waan ku faraxsanahay inaanu idinka soo qayb galno xafladan aadka ugu badan waxaan salaamayaa dhammaan hooyooyinka dalada qaran ama dawadaag ee iga soo horjeeda gudoomiyayaashooda iyo dhammaantoodba waxaan kaloo salaamayaa odayaasha gudoomiyayaasha hooyada iyaga salaanta ku yar tahay iyagana waxa weeyaan ee mudanta waan salaamayaa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska iyo shaqada oo aanu martuun ahayna waan salaamayaa gudoomiyaha nafis oo runtii si mug iyo miisaan leh aan ugu mahad celinayo guud ahaanba halabuurka iyo haladayga ay jamhuuriyadda somalilan ka wado iyada iyo howlwadeenadeeda aad iyo aad baan u bogaadinaya dhallinyarada firfircoon ee runtii agaasimayaasha ah ee gaas ay ka mid yihiin ee hawsha dayna aad baan u mahadinaya dhammaan marti sharafta ay saxaafaddu ka mid tahay aad baan u mahad celinaya intaa kadib horta hal abuurka horumar kale aadamaha inaka ugumaynaan horreynin tusalayaal waxaan idinku soo qaadanaya hawshan aynu iminka wadno hal abuurkeedii koowaad waxaa lahaa nin brofesor ahoo waddanka bangladesh dadkiisa oo aad iyo aad u tiro badan oo boqolaal milyuuna inagu dad tiro yar baynu nahay dalalka ugu saboolsan adduunka ka adkaysan waayey oo u fakiray inay hooyooyinkooda iyo dalkooda ay soomaalnimada ka baxaan infacti uuna ku guulaystay innaga iyo ummad badan oo adduunka ka mid ihina waynu ka faa'iidaysan qof keliyaba adduunka wax tari kara inan inaga dhalatay ama inan inaga dhashaybaa wax tari kara oo dalka badbaadin kara waxaan ognahay waddanka turkiga waddan aad iyo aad u liita buu ahaa ninkaa ordogaan la yidhaahdo ilaahay u soo saaray waddamada ugu horreeya buu maanta ka mid yahay waddanka la yidhaaho ee iminka tiknolojiyada casriga ku ah taiwan sidaasoo kale waddan yaroo somoolaho la goodoomiyey buu ahaa way badan yihiin maanta waa ilaahay mahadii haddii mashruucan quruxda badan aynu halkan ku daafurayno waxaan idiin sheegayaa runtii xukuumadda aad doorateen ee aa idinku soo saarteen ee aanu markhaatiga idiin furayno siyaasaddiisa buugga xisbiga kulmiye waxaan jeclaan lahaa inaad wada akhridaan waayo waxa weeyaan hal abuurka koowaad iyo xukuumadda siyaasaddeeda koowaad waa in saboolnimada laga baxo waa in waxbarashada kor loo qaado waa in amniga la xoojiyo sidaa daraaddeed saddexdaa qodob ee bilariskaas aasaaska u ah ee qarankeennu waxa weeyaan uu leeyahay saddexduba waa saddexa hooyooyinku ay gacanta ku haystaan runtii waxaynu markhaatiinteennaba ka nahay hooyadu waxa weeyaan waa qof laakiin waa qoys haddii qoysku uu saboolnimada ka baxo qarankuna saboolnimada uu ka baxay hooyadu markaa waa unug waxa weeyaan betelaya qarankii oo dhan jamhuuriyadda somalilan sidaa daraaddeed haddii ay tahay madaxweyne iyo haddaanu nahay golo wasiiraa iyo haddaanu nahay dhammaan hay-adaha qarankee kala duwan iyo hay-adaha madaxa bannaan dhammaanteenba fakarkeennu waxa weeye sidii aynu horumar u gaadhsiin lahayn dalkeenna iyadoo oo aynu ognahay in dumarka iyo carruurtu ay bulshadeenna yihiin boqolkiiba 70 macnaheedu waxa weeye hoggaaminteena iyo halaburkeenuba waxaynu isugu geynaynaa sidii ay hooyadu u horumar lahayd
kusoo gaabinaya maanta inagu waxaynu leenahay waddan aad iyo aad u qurux badan waxaanu haysanaa macdantii beerihii xoolihii kalluunkii waxaynu haysanaa dabeecad wanaagsan oo aynu 12 biloodba wax ku beeran karno waxaynu haysanaa dad isjecel oo ehel ah oo wax isu quuri kara diinteenna iyo shareecadeenna wanaagsanina waxaynu ugu amraysaa inaynu taageero oo aynu wada qabsano tacaawunu cala albirri wattaqwa bu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inaynu markaa gacmahaas wada qabsanno wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqagelintu arrimaha bulshada macnaha waxaynu ka dhadhansanaynaa waxa weeyaan bulsho weynteena ay hooyadu ugu horeyso siyaasadda dowladda iyadaa uga mas-uula waxa weeyaan inay sii horkacdo halabuuradan hirgeliso horumariso wasiirka odhan doona insha allah billahi kariim waxaan loo ognahay inay runtii wasiiradii iskala bedelay oo maantana wasiir mustafa uu joogo wax badan aynu halkaa ka qabannay taana waxa weeyaan hareerahaynu isla qaban doona insha allahu waxaan kaga baxayaa maanta dalkeenna waxa ku xaydaaman wadamo wada dhibaata ka jirto sidaa daraaddeed laambadda aynoo ifaysaa waa inaynu ilaashanaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi